wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa waxa ay ku soo waramayaan in hubruursi xoogan uu ka jiro gobolkaasi ka gadaal markii maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan ay ugu soo biireen xiisada gobolkaasi Gedo dowladaha Kenya iyo Itoobiya. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa gudaha waddanka Itoobiya gaar ahaan tuulo hoos timaada degmada Doolow gobolka Liibaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa la tilmaamaya in halkaasi kulamo xoogan weli uu ka wado. waxaa la tilmaamayaa in saraakiil Itoobiyaan ah iyo halkaasi ku sugan weli kulamo uu la qaadanayo ila dhaxalgal ah oo kulankaasi ka agdhowaa ayaa waxa ay ku waramayaan in Maxamuud Sayid Aadan lagu wareejiyey 120 askari kuwaasi oo wata dabaabaad dagaal iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo ka qayb qaadanaya dagaalka Jubbaland ay kula jirto dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaa la tilmaamaya Maxamuud Sayid Aadan in ciidamadaasi uu la soo aadayo dhanka iyo magaalada Doolow halkaasi oo fariisin u ah ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale kuwa ka amar qaata Jubbaland oo iyaguna halkaasi ku sugan. waxaa la tilmaamaya in qorshuhu uu yahay in guud ahaanba halkaasi ay ka soo dhaqaaqaan si ay u soo gaaraan magaalada Balad Xawo oo fariisin muhiim u ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xerada UK. waxaa la tilmaamaya in sidoo kale Kenya uu ka helayo diyaarado dagaal dabaabaad iyo sidoo kale hub iyo sanad ciidan oo tirabeela kuwaasi oo guud ahaanba lagu taageerayo maamulka Axmed Maxamed Islaam Madoobe. waxaase la tilmaamaya tallaabadaasi inuu ka shaqeeyay Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland. xiisada gobolka ayaana la tilmaamaya inay weji kala yeelatay. waxay u muuqanaysaa in mar kale ay fooda isdari doonaan dhinacyadu islamarkaana ay ku dagaalami doonaan gudaha magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi Gedo gaar ahaan magaalooyinka Doolow iyo Balad Xawo kuwaasi oo xadka labada dowladoodba ku yaala oo ay maalmihii ugu dambeeyaba dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan ay ka jireen. wararku waxaa sidoo kale ay ku nuuxnuuxsanayaan in dowladda federaalka Soomaaliya dhankeedu aysan dab yar shidaynin islamarkaana xoguhu waxay tilmaamayaan in ciidamo tirabeelihii saacadihii ugu dambeeyay dowladdu ay halkaasi ku daabulayso kuwaasi oo guud ahaanba lagu xoojinayo ciidamada ku sugan xerada UK. waxaana hogaaminaya taliya Dhafoore oo sarkaal sare oo dowladdu ay u egmatay in ciidamadaasi uu hogaamiyo. taliyaha warbaahinta la hadlay goor sii dhaweysay waxa uu tilmaamay inay iska difaaci doonaan dhaqdhaqaaq waliba oo waddanka looga soo duulayo. uu sheegay inay iska caabin doonaan wararka la qorsheynayo ee ay dabada ka riixayaan wadamada shisheeye ee la doonayo in lagu soo weeraro gudaha magaalada Balad Xawo. waxaana uu hoosta ka xariiqay inaysan maangal ahayn wax waliba uu markaasi qarannimadeena wax u dhimaya ayna difaaci doonaan. maalmihii ugu dambeeyay waxa uu sheegay in gobonnimada Soomaaliya aysan ahayn guud ahaanba mid geed ku xiran islamarkaana cidi loo daba fadhiyo. waxaana uu hoosta ka xariiqay inay qaadi doonaan warar kama dambeysa oo guud ahaanba Jubbaland looga saarayo degmooyinka ay uga harsan yihiin gobolka Gedo. waxaa sidoo kale taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Jubbaland ee ay magacowday dowladda dhexe ee Soomaaliya Cabdirashiid Janan uu dhankiisa sheegay in iyaguna ay abaabul xoogan sameynayaan si loo xoojiyo dagaalka lagula jiro Jubbaland ee ay ku gaarayaan magaalooyinka waaweyn ee gacanta Jubbaland ku jira oo ay ku jirto magaalada Doolow oo ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiyaan ah kuwaas oo ka amar qaata Maxamuud Sayid Aadan iyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe. Maxamuud Sayid Aadan iyo ciidamo uu wato Itoobiyaan ayaa la tilmaamaya in Doolow dhanka Itoobiya ay ka soo ruqansadeen islamarkaana ay ku soo jeedaan dhanka iyo magaalada Balad Xawo. ujeedka ayaana la tilmaamaya in ay guud ahaanba doonayaan inay gacanta ku dhigaan magaalada Balad Xawo oo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan. waxaase la tilmaamayaa in ay halkaasi sanad ciidan iyo hub tirabeela dowladda qudheedu ay ka dejinaysay. dagaal ayaana maangala in halkaasi uu ka dhacay ciidamadan Itoobiyaanka ee taabacsan Jubbaland ayaana la tilmaamayaa inay ku joogaan howlgalka midowga Afrika ee AUSOM kaasi oo dhawaan ka hergalay gudaha Soomaaliya. waxaase la tilmaamaya islamarkaana maalmihii ugu dambeeyay ay dhinacyadu ka shaqaynayeen gaar ahaan taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad in guud ahaanba dowladda Soomaaliya ay ka shaqaynaysa in ciidamo masaari ah la geeyo gobolkaasi si looga jibiyo ciidamada Kenyaanka ay halkaasi ku sugan iyo kuwa Itoobiyaanka. waxaa la tilmaamayaa in xiisadaasi ay dhalisay in guud ahaanba Kenya iyo Itoobiya ay garab ka dhigtaan dhanka iyo
Axmed Maxamed Islaam Madoobe isla markaana ay iska kaashadaan dhaqdhaqaaq waliba oo ka imanaya dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. Xiisadahan ka aloosan gobolka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan wejiyo kala duwan u yeelanayay, waxaase la tilmaamayaa hadda inuu marayo meeshii ugu dambeysay oo ay dhinacyadu isku wajahayaan. Dowladda federaalka Soomaaliyana waxa ay maalmihii ugu dambeysay siyaabooyin kala duwan uga shaqaynaysay inay qaado dhaqdhaqaaqyo ciidan oo kama dambeysa oo guud ahaanba Axmed Madoobe halkaasi looga saarayo, halka Madoobena isagana uu qorsheynayo in ciidamo uu dhigo magaalada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo, halka sidoo kale diyaarada ka socda Jubbaland iyaguna maalmihii ugu dambeeyay ay ku degayeen gudaha magaalada Mandheera, kuwaasi oo guud ahaanba saanad iyo hub ciidan u geynayay ciidamada Jubbaland ee geesta kale ka jooga magaalada Balad Xaawo. Isobiratanwasho xoogan ayaa ka jirta gobolka, gaar ahaan magaalada Balad Xaawo, waxaase la tilmaamayaa in dhinacyadu ay midba midka kale uu doonaya in guud ahaanba isaga gacantiisa uu ku soo celiyo magaalada, waxayna doonayaan in guud ahaanba ay la wareegaan. Maalmihii ugu dambeeyeyna waxa ay martigelinaysay xiisada iyo banaanbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadka shacabka. Waxay si weyn u diidan yihiin guud ahaanba hadalkii dhowaan ka soo yeeray dowladda Itoobiya, gaar ahaan sarkaal ka tirsan ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan magaalada Dolow, kaasi oo guud ahaanba ka dhawaajiyay in guud ahaanba 3 cisho ay u qabanayaan ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada Balad Xaawo isla markaana ay isaga baxaan. Hadalkaasi ayaa la tilmaamayaa in shacabku si weyn ay uga xumaadeen, isla markaana banaanbaxyo xoogan ay ka dhigeen magaalooyinka Dolow iyo Balad Xaawo, waxaana la tilmaamayaa markan in weji kale ay yeelatay arrintu, isla markaana shacabka ay gadood xooggan ay muujinayaan, ayna magal tahay in iyaga qudhoodu ay hubka qaataan si ay isaga difaacaan ciidamada Kenyaanka iyo kuwa Itoobiya ee weerarka ku soo ah magaalooyinkooda. Waxaana la tilmaamayaa in saraakiisha ciidamada ee hogaaminaysa kuwa xooga dalka Soomaaliyeed ay si weyn cabasho ugu muujinayaan diyaarada dul heehaabaya sheeda sare ee xira UK, kuwaasi oo sawiranaya, waxaana la tilmaamayaa in cabsi xoogani ay wajahayaan. Warar qaar oo aynu helayno waxay tilmaamayaan in ay dowladdu danaynaysa in diyaaradahaasi dhulka ay soo dhigto haddii mar kale ay ku soo laabtaan, isla markaana ay soo dulmaraan xira UK oo ah halka laga abaabulo dagaalka ka dhankay Axmed Madoobe. Waxaase la tilmaamayaa in guud ahaanba tallaabadaasi si weyn maalmihii ugu dambeeya ay uga shaqaynayeen dowladaha Kenya iyo Itoobiya. Diyaarado aan duuliyo lahayn ayaana la tilmaamayaa inay dul heehaabayeen sheeda sare ee xira UK. Hadda waxaa la tilmaamayaa ciidamo ka amar qaata Xamuud Sayid Aadan inay ku soo jeedaan gudaha magaalada Balad Xaawo, kuwaasi oo ay shacabka cabsi xoogan ka muujinayaan, kuna tilmaameen inay yihiin tallaabo halis ah uu qaadayo Xamuud Sayid Aadan dagaalka uu ku wajahayo gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada Balad Xaawo ayaana la tilmaamayaa inuu yahay mid aanan ka tarjumaynin amniga guud ee gobolka. Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa waxa uu qaadayaa tallaabooyin xoogan uu uga mintidayo gobolka in guud ahaanba gacantiisa uu ka baxo, waxaana uu doonayaa in riyada dowladda federaalka Soomaaliya inay dhisato maamulka madax banaankan Axmed Maxamed Islaam Madoobe, kaasi oo laga dhisayo magaalada Garbahare, in guud ahaanba ay soo afmeeraan maamulka Madoobe, wana ay doonayaan in guud ahaanba tallaabadaasi ay ku qabsadaan ciidamada Kenya iyo kuwa Itoobiya. Lama sooga xiisada gobolka iyo halka ay saldhigan doonto.